Tilmaam Academy. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Kusoo dhawaada mar kale kooraskeenii English Vocabulary in Use Elementary Level. Maanta waxaan qaadan doonaa insha Allah Unit 9. Unitkii 9aad waxaan ku qaadan doonaa insha Allah Conversations 2. Chapter 8 ayaan kusoo qaadanay Conversation 1. Ereyada basically dadka markay sheekeysanayaan qaabka isku salaamaan iyo waxyaabahaas kale. Maanta waxaan qaadan doonaa useful words and expressions. Marka qofka inuu hadlo uu rabo ereyada oo basically inuu qof kasta mar kasta oo isticmaalo ay muhiim tahay inuu ku dadarsado ereyadiisa kuwaas oo laga yaabo in qoraalkiisa ama hadalkiisa ay qurxiyaan. Bal aan isla fiirino section A kadibna aan isku soo laabano markaas. A. Words. Word, actually. Example: people say bad things about her, but she's actually very nice. Meaning, in reality. Really. The book is really good. Very. Else. Do you want to buy anything else? Or go somewhere else? In addition or different. Around. I'll meet you at around 6 o'clock. About or approximately. Anyway. I'll drive you home. I'm going that way anyway. To give a reason for doing something. Anyway, as I said, I woke up very late today. To return to an earlier subject. Alright. Bal asla fiirino ereyga ugu horeeya maanta aan rabnaa barno waxaa waaye actually. Example tusaale la gelinaya markasta si ereyga aad ugu fahamtid. Ereygan actually dadka qaar aad u isticmaalaan actually run ahaantii waa in reality run ahaantii daacadii camal waaye. People say bad things about her. Dadka waxay ka sheegaan wax aanan fiicneen gabadhaas. But she's actually very nice. Like run ahaantii waa qof aad u fiican. Saas camal waaye. People say bad things about her. Dadka waxay ka sheegaan wax aanan fiicneen about her oo ayada ku saabsan. But she's actually very nice. Marka ereygan actually waxay u taagan tahay in reality. Daacadii runtii. Really ereygan really muhiim waa asigana. The book is really good. Oo laga wada the book is very good aa laga wadaa mina. Okay. Else. Ereygan else unfavorable else. Do you want to buy anything else? Kasoo qaad dukaanka tagtay laba shay aad gadatay kadib qofka dukaanka jooga wuxuu ku dhihi karaa do you want to buy anything else? Wax kale ma rabtaa? Do you want in addition to that? Wax dheeraad ma rabtaa inaad gatid? Or go somewhere else. Mas waxaa rabtaa inaad aadid somewhere different inaad rabtaa. Marka ereygan else. Do you want to buy anything else? Shay kale ma rabtaa inaad gato dheeraad wax kale. Or go somewhere else. Masa meel kale aad rabtaa inaad aadid oo ka duwan meeshan. Marka else muhiim waa ereygaas. Around. Around waxaa loo isticmaalaa approximately. Qiyaas markaadan aqoonin. Tusaalaan saacadda badanaa dadka badanaa ma yaqaanaan exactly. Goorma ahayd aad iska dhahayaa markii shalay is arkaysiin. Waxaa iska dhahaysaa it was around 5 o'clock iska dhahaysaa. Exactly 5 o'clock ma ahayn laakiin maybe 5 daqiiqo dhineed maybe 5 daqiiqo raacday. Marka maadaama aadan hubin around ayaa la iska isticmaalaa. Qolkan ayaa waxaa joogtay dad oo dhowr qof ah. 6 qof ma ahaayeen mise 7 qof ma taqaanid. Marka waxaa iska dhahaysaa they are around 8 people in the room. Okay, they are around 8 people in the room. About that isticmaashada mina waxay tahay waxaan hubnaa in aadan hubin numberkaas waa ognaa markaas around ay isticmaashay. I will meet you around 6 o'clock. Waxaan kulmi doonaa around 6 o'clock.
6 o'clock meelahaas waxaa laga wadaa 6:30 ay noqon kartaa, waxay noqon kartaa 5:30 ay noqon kartaa, means wax yarna waa ka dhimi kartaa, wax yarna waa ku dari kartaa, caadi waay. Anyway, ereygaan kusoo gabagabayn doonaa sectionkan. Anyway laba siyaa loo isticmaali doonaa. Bal example koodaan fiirino. I will drive you home. Guriga ayaan ku kaxayn doonaa. Like qofkan gaari ayuu wataa, marka wuxuu ku leeyahay I will drive you home. Guriga ayaan ku kaxayn doonaa. I'm going that way anyway. Aniga wadadaas anaa u socdo. To give a reason for doing something. Adigana haddaad dhahdo nin hay qaadinays dhibin mayo ku dhahayaa sababta anigaa u socda wadadaada. I'm going that way anyway. Anaa u socda wadadaas. Anyway, waxaa kaloo loo isticmaali karaa to return to an earlier subject. Qofaa sheeko ka sheekeeyey, sheekadii ayuu rabaa inuu sheeko kale u bedelo. Anyway, oo iska dhahayaa si kastaba ha ahaatee camal, maybe sheeko kale u aadi rabaa mararka qaar. Anyway, as I said, I woke up very late today. Sidaan hore usoo sheegay, I woke up very late today. Maanta xilli dambe ayaan soo kacay. So anyway, midda dambe waxaa loo isticmaalay to return to an earlier subject. Marka muhiim waaye ereyas in la isticmaalo. Section B aan isla fiirin doonaa markaan. Bal ila dhegeys marka hore. B. Expressions. Why don't we go to the cinema this evening? Good idea. Let's go and see a film and then have a meal. Okay. Which film do you want to see? I don't mind. It's up to you. How about the new Angelina Jolie film? What about the new Angelina Jolie film? I was late for work today. Oh dear. Was your boss angry? I forgot to bring your book. Oh, it doesn't matter. I don't need it. I'm sorry, but I can't come to your party. What a pity. I passed my exam. Well done. Hurry up! The taxi's here. Look out. There's a car coming. Be careful. There's a car coming. We need to buy Marta's birthday present. Absolutely. What about getting her a scarf? I agree. Let's go shopping this afternoon. Alright. So expression ka meel la fiiriya waa ereyo oo aad u gaagaaban oo wax badan aan ka fahmi doono. Why don't go to the cinema this evening? Suggestion ay qof soo jeedin maybe laba qof asxaab ah waxay leeyihiin qof ayaa qof kale u soo jeedinaya inay aadaan cinemada. Why don't we go to the cinema this evening? Ma aadno cinemada isdhaayamina. Qofka kale wuxuu leeyahay good idea. That's good idea. Oh, arrin wanaagsan waaye. Let's go and see a film and then have a meal. Oh, war fiican waaye. Aan aadno filimkaas aan soo daawano then have a meal. Kadibna aan soo cuntayno markaas. Used to make a suggestion. Soo jeedin ala sameynaa markaas. Asagana qofkan wuxuu sameeyay soo jeedin kale. Okay, which film do you want to see? Waxaa la filimkee jeceshaa inaad daawatid? Which film do you want to see? Waxay la mid tahay which film do you want to watch camal waaye. I don't mind. It's all the same to me camal laga wadaa. Isku mid ay tahay waaye. I don't mind. Qofka wax ku weydiiyey option ku weydiiyey labadaas ka jeceshaa ku dhahay. Then waxaa dhihi kartaa I don't mind. Aniga isku mid ay tahay wax ma kala jeceli waa macnaha. It's up to you. You can decide camal waaye. Adiga noo door waa macnaha. It's up to you. Wallahi adi lee waaye. mid leen oo door filimka aan fiirsaneen. Kadib su'aal kale sii weydiiyey wuxuu leeyahay how about the new Angelina Jolie film? Ka waran Angelina Jolie filmkeeda ka waran. Wuxuu kaloo dhihi karaa what about the new Angelina Jolie film? Filmka Angelina Jolie ka waran waa qaabka dadka loogu soo jeediyo. Used to make a suggestion. Okay? saasoo kale marka maqaayada tagteen qofaa waxaa ku dhahday do you like fish or chicken qofka wuxuu ku dhahay
I don't mind, it's up to you uu ku dhihi karaa wallahi adi le waay mid lina dooqo. How about if we order fish aduu ku dhahay haddaan dalbana ka warama fish, it's okay aad dhihi kartaa markaas oo kale. Marka waa ereyada badanaa la isweydiiyo mar walba oo la sheekeysanayo, marka muhiim waaye. Common mistakes. Why don't we go? Why don't we go in? Ma dhihi kartid. Why don't we go? Waxaan kusoo aragna bilaaga. Why don't we go to the cinema this evening? Ma aadna waa macnaha. Let's go. Ereygaas muhiim waaye. Dadka qaar waxay sameeyaan, dadka lahajad ku hadla let's go iska dhahaan sometimes. Let's go. Let's go. Ina kaxee waa ina wadi aan aadna markaas. How about going? How about go? Macquul ma. How about going? Ayaa laga rabaa markaas. What about going? What about go? Macquul ma. Okay. Sheekooyinkan goos waaye. Marka hadafku waxay tahay ereyada boldiga ku yaalo ayaa rabaa inaad fahantaan. I was late for work today. Qof wuxuu ku dhahay I was late for work today. Maanta shaqada waa ka daahay oo ku dhahay. Maadaama qofka shaqada waa ka daahay ku dhahay, waa inaad la xumaataa dhahdaa oh waa ka xumaa wallah. Oh dear. Oh waa ka xumaa wallah. Was your boss angry? Boss-kan kugu xanaaqay. Use when you are surprised or disappointed. Waxay caddaynaysaa inaad la yaaban tahay ama aad ka xun tahay daahitaankiisa. Oh dear adhaysaa. I forget to bring your book. Qof ayaa ku ballansanadeen buuggiisa inaad u keentid berrito, then maalintii la gaaray buuggii waa soo hilmaamtay. Kadib waa cudur daaranaysaa waxaa leedahay oh I forget to bring your book. Oh buuggaada ma ku soo qaadin. Qofkan kalena caadi waa ku dhahay waxaa ku leeyahay oh it doesn't matter. Oh htaas silent way. Oh it doesn't matter. I don't need it. Ma hadda ma u baahni. It's not important. Macnaha muhiim mu yahay maanta ma. I'm sorry but I can't come to your party. Like qof ayaa xaflad aad u weyn lahaa oo sugayay maalmo dhan, waa balansaneed, kadib habeenkii u sheegtay waxaa ku dhahday sorry aniga berrito ma imaan kari xafladda arooskaaga. I'm sorry but I can't come to your party. What a pity. Qofka muxuu ku leeyahay what a pity. It means waxay caddaynaysaa inuu ka xun yahay alla nasiib xumaa camal waa qiyaastay. What a pity. It is used when you are disappointed. Waxaa ka xun tahay qofkaas inuu ka baaqdo event aad weyn, dhacdadaas arooskaaga dhan ama xafladada qalinjibinta dhan ala sugaysay. What a pity. Ereygaas muhiim ah marka. What a pity. I passed my exam. Qof ayaa wuxuu ku dhahay I passed my exam. Imtixaankii waa baasay ku dhahay well done. Ina dhihi kartaa ramkaas well done. Hurry up. Ereygaas muhiim waa hurry up. The taxi is here. Hurry up. Waxaa laga wadaa be quick. Waxaa laga wadaa dhaqsi waa macnaha yalla surca camal waa. Hurry up. Hurry up. The taxi is here. Okay, look out or be careful. Isku macno waa labadaas. Slash hadday u dhexayso waa fahmi kartiin. Slash isku macno waa. Look out. Iska jir waa. Be careful. Iska fiiri. There's a car coming. Gaariga soo socda iska jir waa macnaha. Haddii kale gacmaha ka hadlin. meelaad tagto English lagu hadlayo qofaa rabta inaad dhahdo gaari ayaa kaa dambeeya iska jir oo soo socdo, marka gacmaha ka hadal lama rabo. Waxaa la rabaa inaad dhihi kartid be careful, the car is coming, ama waxaad dhihi kartaa look out, the car is coming. Iska jir waa macnaha. We need to buy Marta's birthday present. Waxaan u baahannahay inaan u gadno Marta xafladeeda ayaan dhalashadeeda ayaa soo dhow, marka waxaan u gadaynaa present gift ayaan rabaa inaan u gadno. Kadib qofkan kugu raacsan yahay muxuu ku sheeg absolutely yes wallahi sax waaye waa kugu raacsan waaye. What about getting her a scarf? Ka waran haddaan siino midka madaxa lagu xirto haddaan u geyno ka waran. Use when you agree strongly. Qofka marka aad ugu raacsan tahay absolutely. Hadda maalmahan dambe Soomaalida aad ugu soo badanaysaa ereygaas. Qofka sheeko ku sheegay waa ku raacsan tahay absolutely sax waaye ereygaas markaas. It means you agree strongly. waa ku raacsan tahay si zaid waliba. Qofkan wuxuu dhahay dhalashadeeda ma u gadnaa qamaarkaas absolutely waa u gadanaa waliba. I agree, let's go shopping this afternoon. Sorry, I agree. waa kugu raacsanahay waaye. Let's go shopping this afternoon. Okay, very important waa marka. Common mistakes.
markii meelaha la joogo dadka khaladaadka galaan waxaa ka mid ah I agree adii kartaa qofa wax kuu sheegay arrin uu kusoo jeeday soo jeedin wuxuu ku dhahay how about if you go to a restaurant uu ku dhahay I agree adeysaa haddaadan ku raacsanayn waxaa dhihi kartaa I don't agree marka ma dhihi kartid I am agree lama ogolo waxaas ama I am not agree lama jecla waxaas qalad waaye grammatically incorrect waxaas kale marka sida saxda waaye I agree waxaa dhihi kartaa haddaadan ku raacsanayn waxaa dhihi kartaa I don't agree like waxaa la diiday anaan ii sheeg I am agree ama I am not agree that's the end of module 1 module 1 ayaa halkaas ku dhammaaday module 1 waxaa la isku dhigi jiray people dhammaan wixii ku saabsan dadka haddii ahaan lahayd chapter 1 ilaa chapter 9 meeshaan ku dhameen insha allah isku daya inaad ka shaqeysaan exercise chapter 9 inaad ka shaqeysaan isku daya iyo guud ahaan module 1 inaad ka shaqeysaan chapter 1 ilaa chapter 9 dhammaantiin inaad ka shaqeysaan isku daya insha allah waxaa inoo banaan insha allah module 2 moduleka labaad ama cutubka labaad oo ka bilaaban doono chapter 10 insha allah see you insha allah waxaa inoo balan ah next module iyo chapter 10 insha allah